أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وين سلامي حرجينيا إن وعنتين meel walba aad joogtaan intii kowda luulyo walba la ciidaya baan u malaynaya insha allah shalay I hope inaad ku ciideen dhammaantiin farxad insha allah farxadiina waan arkay maasha allah walaalahay halkan maxaa yidhahdaa maanta waxaan baranaynaa insha allah waxaan baranaynaa two syllable ayaan dhawey two syllable baan soo qaadanay oo eraya ah insha allah qofkii aan arkin casharkii ku horreeyay weeyaan erayadaasayta ayaan sentence aan gelinaynaa hadda daleerya walaan ku daraynaa insha allah The tiger chased the monkey. The tiger haddaad fiiri waa subjectigii so waa isaga waxa ceyrsanaya muxuu ceyrsaday the monkey waxa waaye monkey ayuu ceyrsaday daanyeerka ayuu ceyrsaday so yaa hawsha haya the tiger yaa wax ceyrsanaya the tiger yaa la ceyrsanaya the monkey sama chase means wuu ceyrsaday yaa ogaada anna waa subjectigii and chase waa ficilkii wixii la sameeyay chase uu ceyrsaday markasta the monkey and this the name markaad aragto the or a or an waxay soo xiga waa hadduu hal xab yahay waa magac the tiger chased the monkey yaa walaal insha allah ereygan monkey muxuu noqonayaa halkaas ku jira monkey halkaas ku kala jira two syllable yaa ogaada insha allah the music is very loud the music waxa haya waa musica maxay tahay very loud aad buu qayladeedu way dheer tahay so the music waa subjectigii is waa ficilkaana waa maxay ficil action maaha waa ficil state verb music waxay tahay very loud mid qayla badan sabta hawl la qabanaya maaha this is loud waa maxay waa adjective very loud waa adjective yeah very loud okay so the music subject is waa ficilkii oo ah state verb to be state waxaan dhahnaa ahaansho music maxay tahay mid aad codkii qayladeedu way aad u badan tahay there's no action inta yeah may I have a glass of water may I have ma heli karaa ama ma haysan karaa glass biyo ah markasta wala so yaa hawsha ku socotaa aniga hawsha aniga waa qofka codsanay inaan helo glass of beer markaste so waa aniga subjectigii halfna waa state verb now half a glass because this is waa maxay ma haysan karaa there's no action inta ma haysan wax ma la qabanayo waxaa la codsanayaa ma heli karaa glass of beer markaste waa codsasho may I have ma codsan karaa ma codsan karaa weeyaan may I have ma heli karaa a glass of water waxbaan codsanay action maaha yaa walaalay because this also is a state verb hadda mafahant insha allah your book is on the table buuggaaga wuxuu yahay mjedaa there's no action is waa maxay waa state verb meeshan haddaad aragto action maaha yeah your buuggaaga is muxuu yahay on the table so wuxuu yahay mjedaa there's no action wuxuu yahay mid saaran on the table miiska korkiisa yeah so this waa maxay this is the subjective the state verb ya dadkiina state verb garan waa ficilka aan ficil weyn like action maaha wax la qabanayo dhaqaaq oo action kuma jiro markasta I am happy that I made these lessons waxaan ku faraxsanahay in aan sameeyay casharadan markasta ayaan ku faraxsanahay so I waa subjective waa aniga waxaya am maxaanahay happy mid faraxsanahay so this waa maxay waa state verb because there's no action anigu waxaanahay mujeedahay macnaha aniga waxaan ku faraxsan maxaanahay mid ku faraxsan inaan sameeyey mujeeda halkan that I made kaas anigu aan sameeyey this mujeeda this made muxuu noqonayaa waa action waxbaan qabtay maxaan qabtay casharadan baan qabtay mujeeda saa ogaad fahmay this waa maxay this waa ficil weeyaan maxaan qabtay inaan casharadan aan sameeyey laakiin halkan maxay caddaynaysaa inaan just ahay qof faraxsanahay so there's no action this is state verb this is action verb yaa walaala insha allah I'm looking for a basket to carry my groceries waxaan fiirinayaa ama raadinayaa for a basket dambiil to carry taas oon ku qaado my groceries so grocery meesha lagu iibto dukaamada cuntada laga iibsanayo jooga wax baan iibsanayaa
so maxaan raadinayaa basket dambiil aan ku qaato wixii aan iibsadaya I'm looking for waxaan raadinayaa markan halkan markaad aragto ujeeda I am wuxuu noqonayaa caawiye muxuu caawinayaa ficilkan uu caawinaa this waa maxay waa present continuous I am looking for waxaan raadinayaa ama fiirinaya markaste so this time kaligeed ma taagna mafahanta so this action kan halkan dhacaya ayay caawiye u tahay mafahanta so it's a helper I am looking tan ayay la socotaa markasaa ogaada so now this is what action maxaanahay I am anigu maxaanahay looking mid raadinaya markasta wala oo fiirinaya so saa ogaada I'm looking for a basket to carry my groceries yeah waxaan raadinaya aan fiirina basket dambiil aan ku qaato groceries wixii aan iibsaday cuntooyinka aan iibsaday aan ku qaato insha allah I saw I subjectigii saw ficilkii this is what action ficil I saw maxaan arkay a huge lion waxaan arkay huge lion baan arkay oo aad iyo aad u weyn in the zoo xagee baan ku arkay markaas ereyga saw waa maxay waxaan arkay markasta insha allah waa maxay waa ficil insha allah I saw waxaan arkay I saw waxaan arkay I see waxaan arkaa I will see waxaan arki doonaa markaste so ficilka saas isu bedelaa ogaadaya a huge lion maxaad aragta muxuu kuu sheegayaa wixii soo socda inuu yahay magac so this huge kan wuxuu qeexayaa in lionku iyo mid aad weyn so this waa maxay waa qeexe waa maxay waa adjectiveku muxuu qeexaa magac ayuu qeexaa most of time waxaad arkaysaa adjectiveku inuu ka horeeyo magaca yaa walaalaysaa ogaad a huge lion eedan waxay u dhacaysaa inuu kan hal yahay hadduu kan halka badan lahaa ama ujeedaa eeda halkaas way ka bixi lahayd huge lions uu noqon lahaa eeda halkaas way ka bixi lahayd marka eeda maxay ku baraysaa kan soo socda inuu yahay hal wax inuu yahay in the zoo waa meesha xayawaanada lagu xareeyo oo aanan duurka ahayn meelaha aan dadku degan yihiin ma aragta xayawaan lagu xareeyo zoo la dhahaa she likes waxay jeceshahay to play the guitar iyadu waa maxay waa mid jecel inay ciyaarto the guitarna waan wada garanaynaa walaa just guitar baan dhahnaa soomaali she likes to waxay jeceshahay in ay so this is maxay subjectigii the ficilkii oo ah waxay jeceshahay inay ciyaarto the guitar she likes to play the guitar kasta walaala insha allah I sent this past waa action anigu waxaan diray warqad a letter means hal warqad to my friend saaxiibaday oo saaxiibkay waa inta waa isku mid so friend haddaa maqsho labadaba u dhici karaa I sent a letter to my friend warqad baan u diray saaxiibkay ama saaxiibaday the cat sat bisadii maxay fadhiistay in the corner inta waa maxay say ma dhahno corner ma dhahno in the corner America corner yeah corner arta waa silent the cat sat bisadii maxay fadhiistay in the corner geeska bay fadhiistay bisadii geeskii bay fadhiistay yeah subjectigii ficilkii the rocket soared into the sky leaving a trail of smoke the rocket subjectigii soared waa maxay waa actionkii the rocket dayax gacmeedkii soar into the sky cirka ayaa cirku ku carar mujida leaving a trail of smoke kaasoo markuu dayax gacmeedka markuu cirka aada maarta maxaad aragtaa qaacisii baad ka dambeeyaad arkaysa taasaa a trail macnaha wuxuu dhaafay trail oo wax loo jeedo qaaci maaragta oo loo jeedo ayuu ka tegay baa laga wadaa markasta walaale marka insha allah I hope intaa qaybtan inaad ka fahanteen wixii aan uga dan lahaa oo ah in aan sentence geliyo ereyadaasi insha allah halkan waxaas also kaa baray subjectigii wixii iyo ficilkii ayaad baratay insha allah marka hopefully waxaan rajaynayaa walaalahay inaad ka hesheen casharka wala waxaan rajaynayaa inaad cashar ka harta waxaan rajaynayaa casharka inaad ka hesheen khayr caafimaad baa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh